taariikhdu markay 16 bishii October 2011 ayaa waxaa lagu soo qaaday duulimaad gardarada dalka Somaliya sida la socotaan way Somaliya waxaa ka maqan dawlad central government ilaa 20 sano haddaba taas waxay koos gareysay in dad badan oo Soomaaliyeed maanta ay ka careysan yihiin duulimaadkan qaawan ee Kenya ku soo qaaday dalka Soomaaliya ayna abuurtay iska hormaad haddaba waxaan ku dadaalnay anagoo Soomaaliya oo degan UK ama shacabka Soomaaliyeed degan UK inay arrinta ka dhidiyaan ayna diyaariyaan barnaamij aan u bixinay barnaamijka ka hortagga Kenya ay wadato inay ku qaybiso dalka Soomaaliyeed ku hanaanato dalka Soomaaliya waxaan u diyaarinay inaan qabanno demonstration lagu soo horjeedo dawladda Kenya maalinta Friday-da oo ah 28 bisha saacadu marka ay tahay 12 PM ilaa 6 o'clock uu socon doono ka soo qaybgalkaagu waa muhiim qof kasta oo Soomaaliya oo u danqanayo dalkiisa gardarada cad ee nagu soo qaaday Kenya waa mid aad iyo aad aan u damqanayna hadaan nahay dalka shacabka dalka Soomaaliyeed waana ka dhidhinayna banaanbaxana 28 ka dhici doono jimcaha soo socota duulimaadka karaal noqdo safaaradda Kenya waa inaan ugu soo caawisin haddii ayaga ay sheegteen waxana soo weeraray dad ka yimid Soomaaliya ama ay leeyihiin waa al-shabaab wadanka kama aha mas'uul shaqo ay ku leeyihiin ma ahan Ethiopia iyo Kenya wadankeena uma ogolin xiriir caalami kuma imaan karaan xoogna kuma imaan karaan duulaana naguma qabsan karaan marka waxaan u direynaa baaq ah inay iskaga baxaan dalkeena iyo faragelinta siyaasadda guracan ee nagu soo qaadaan mar walba inay dib uga degaan qof kasta oo Soomaaliya oo jooga wadankan UK waxa waajib ku ah inuu maalintaas soo qaato caalankiisa iyo panelkiisa oo ku soo qorayo ma ogolin in wadankayga ay shisheeye soo galo Soomaalina waxa caad u ah inaysan waligeed yeelin inay shisheeye soo galo sida la socotaan dawladda Muqdisho waxay sheegtay in dawladda Kenya ay ku soo xadgudubtay xuduudda ama sovereignty-ga Soomaaliya ayna raali ka ahayn shacabka Soomaaliyeed meel kasta ay joogaana sidaas ayay leeyihiin dawladda Kenya waa inay ciidamadeeda kala baxdaa si dhaqso ah oo aan baryo ahayn waayo waxay ku soo galaan waa illegal waxayna jibiyeen waxa loo yaqaan international law United Nations-ka iyo European-ka United States waxaan ka codsanaynaa inay arrintan ka noqdaan mid dhexdhexaad oo ay shacabka Soomaaliyeed taageeraan aysan u arkin shacab argagixisa waxaan u sheegnaa caalamka inaanan ahayn shacab argagixisa waxaan nahay shacab dhibtoon u baahan dawlad sax ah oo dalka iyo dadka Soomaaliya matasha sida daraadid banaanbaxan wuxuu noqon doonaa midkii shacabka Soomaaliyeed isu keen la meel kasta ha noqdeen waanu ka daqanaynaa dadkayga baaba'san ee meel kasta maanta ku baaba'san waxaan leenahay dagaal Soomaaliya maanta uma baahna